walaalaha Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan runtii waxaan halkan ka salaamayaa walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. halka aan idin ka soo salaamayaana waa magaaladii Muqdisho ama Xamar Caday oo runtii muddo dheer aan ka maqnaa, laakiin aanan qalbi ahaan uga maqnayn, jir ahaan aan uga maqnaa. runtii waan soo laabtay, shacabkaygiis qurux badan bay ii soo dhaweeyeen. anna waxaan doonayaa sidii ay ii soo dhaweeyeen iyo qalbigii ay igu soo dhaweeyeen mid lamida ama ka sii sarreeya in aan anigana hadduu ilaahay yiraahdo aan ku qaabilo. waxaan dhigi doonaa runtii waan dadkayga la qaybsan doonaa inta aan ku sugnahay magaalada Muqdisho muxaadarooyin runtii aad u fara badan, kuwa diini ah iyo kuwa dunyawi ahba runtii. waxaan si gooni u watay barnaamijkaygii shaqayso ha shaxaadine oo aan runtii qaban doono, aan dhalinyarada ku dhiirigelin doono hawlahooda iyo mustaqbalkooda adduunyo. waxaa iigu horeysa muxaadaradan aan ugu magac daray cafi walaalka, oo aan ku qaban doono runtii hoolkan Sahal kilometer 4 maalinka jimcaha ah oo runtii bishuna ay taariikhduna ay tahay 11 January. hal maalin unbaa inaga xiga, marka waxaana kaga hadli doonaa cafi walaalka. cafi walaalkaana runtii sidaad ogsoontihiin meelo badan baan kaga soo hadlay. waxaan ma aha midaan ku tijaabinay magaalada Muqdisho, horaan u soo tijaabiyey, mana doonayo magaaladaydan aan aadka u jeclahay inaan wax ku tijaabiyo. Kenya ku soo tijaabiyey, Tanzania ku soo tijaabiyey, Uganda ku soo tijaabiyey. miro aad u qurux badan baan ka helay. marka waxaan ii caddaatay in aan ummadaydan runtii kala tagtay ee kala irdhowday, uurkooda ay wax kala galeen, in aan runtii ku islaaxin karaayo, isugu keeni karaayo, uurkooda farxad ku gelin karaayo. runtii waxaan leeyahay waxaan si gaar ah horta ugu mahad celinayaa intaanan ilaawin Som News TV oo runtii igu marti qaaday kulankan. aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa. maalinkaasna runtii waxaan aad u jecelahay inaad ka mid noqotaan dadka ugu horeeya ee kafargareyn doona runtii dhacdadaas cajiibka ah ee aan doonayo ummadayda inaan ku daaweeyo. cafi walaalka. bulshaweynta runtii waxaan ugu baaqi lahaa, marka hore waxaan dareemay markaan Muqdisho soo galay saxansaxadii berisamaadkii. mar walba waxaan yidhahdaa ilahu dhulkeenu kusoo celi berisamaadkii, laakiin saxansaxadiisii wallahi maanta waa dareemayaa. maxaa yeelay labadii beri ee magaalada aan joogay Muqdisho in badan baan aad u wareegay runtii. dhalinyarada markay ii yimaadaan islaamayaan, sida qalbiga ii salaamaya, waxyaaba igala hadlayaan, iidaylkood uurkooda waxaa ka guuxaya waa siday waddanka u dhisi lahaayeen, waa siday u heshiin lahaayeen. barnaamijyadan iyagaa igu dhiirigeliyey aniga. waxyaabo ka waaweyn weliba daroogada kamid ah, waxyaabahan shiishadaha kamid ah, zinadan iyo macsidan la wadaa kamid ah, soo ma garan, xataa corruptionka iyo qishka kamid ah, bataalada iyo shaqo la'aanta kamid ah. waxaasoo dhan iyaga igu dhiirigeliyey. waxaan arkaa qalbiyada oo aan dareemaya qalbiyada wiilasheena yaryar ee da'da yar ee waddanka aanan ka bixin intuu wax ku bartay gadaashay dhashay in ay runtii maskaxdooda iyo uurkooda uu aad nadiif u yahay oo ay doonayaan waddankooda inay wax u qabtaan. anigana runtii waxaan ugu soo noqday inaan kuwa garab u noqdo. aad baan kaaga mahad celinayaa.